kulankii xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee ku yeelan lahaayeen xaruntan Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho ayaa maanta waxa uu u baaqday kooram la'aan. Fadhiga golaha waxaa soo xaadiri waayay sida gudoomiyaha uu sheegay kooramkii loogu talagalay in lagu furo golaha shacabka. Gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe ayaa gudoominayay waxaana sidoo kale goobjoog ahaa ku-xigeenkiisa koowaad oo Sacdiye ah iyo ku-xigeenkiisa labaad oo xildhibaan Abshiru ah. Gudoomiye Aadan Madoobe ayaa waxa uu fariin u diray xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya kuwaas oo aan soo xaadirin fadhiyada golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda waxa uu sheegay in kulankii maanta uu kooram la'aan u baaqday. qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka oo iridda hore ee Villa Hargeysa ku hadlay ayaa waxa ay sheegeen in aysan suurtagal ahayn in xildhibaanada iyagoo magaalada jooga kulanka golaha shacabka ama xarunta Villa Hargeysa ay soo xaadiri waayaan. Farsac markii la gaaray waxaa lagu daray hal saac waad ogtihiin halkii saac lagu daray 5 saac markuu buuxsantay waxaan rabnay xildhibaanada inay yimaadaan halkii saac lagu daray haddana maaragtay kooramka tan waa dhammaan waayay haddana weliba ayada oo sharci ahayn si aan hawshan u baaqanin 25 daqiiqo kale ayaan sugnay hadda naftarkeedana waxbaa dhamman sida hadda la soo gudbiyey walaalayaal xildhibaanada sharafta leh waxaan codsanaynaa kooramka dad kooramka buuxi magaaladan waa jooga xaqiiqdii markasta inaan maaragtay kooramkii bari noqdo oo la isku rafaado aadan ugu xunahay arrintaas inaan isxilqaan samayno oo waajibkeena gudino ayaa la nooga baahan yahay marka maanta weliba waad ogtihiin waqtigii ciidii iyo xadkiya soo socda maanta waxaan islahaynay sharcigan muhiimka ah oo hadda cahdigana horyaalo inaan doodiis labaad dhamayno maaragtay si aan maalmahan waxaa ballaaban doonaa waad ogtihiin 10 maalmood oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u ammaanay waa layaalin 10 la yiri ayaa la bilaabay rabaa inaan ciid iyo aan aadno anagoo sheegay aan saxiinayn rabnay maanta maaragtay marna isma lahayn maanta in kooram cariiri galaayo aad iyo aad aan ugu xumahay xildhibaanada sharafta leh dadka jooga waa mahadsan yihiin inkastoo qaarkood soo daaheen waxaan runtii xildhibaanada ku adkaynaynaa oo aan ku celinayaa maanta shirkaan kooram la'aan buu u baaqanayaa arbacada inaan kooram la'aan naga baaqanin waqti fiican la yimaado si aan maalintaas maaragtay aan ugu diyaar garowno ciid iyo xadka maanta maaragtay inaan inta naga dhamaataan rabnay asdaraadada shirki waa qabsoomi waayay aad u mahadsan fadhigan saasa noogu xiran assalaamu calaykum. qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka oo iridda hore ee Villa Hargeysa ku hadlay ayaa waxa ay sheegeen in aysan suurtagal ahayn in xildhibaanada iyagoo magaalada jooga kulanka golaha shacabka ama xarunta Villa Hargeysa ay soo xaadiri waayaan. ruwa gudoonka xaq uu leeyahay mutaqaala ma furi karo xeer hoosaadka u diiday dastuurka u diiday baaranka duusan kooran lahayn in baarlamaanka la furo mataqaana isha xaq waaye laakiin waxaa nasiib darro ah muxuu ahaa isha anaga saaka 9:30 halka imaanay 3 saac bar ay halka soo istaagnay dadka badan xildhibaanada mataqaana way joogeen laakiin waxaa laga yaabaa ama 5 qof ama 6 qof ama 7 qof inuu baarlamaanka u baaqday marka hadda meeshan wax kale maanta uu soo istaagin walaalayaal waa u jeedin wadanka marxaladda uu ku jiro muxuu ahaa ii sheegay hadda xajka la aadaya ma ahan anaga taa sharaf darray nagu tahay in la dhaho mataqaana xildhibaanadii baarlamaanka waa imaan waaye because anaga waxaan loo soo idmaday inaan muxuu ahaa golaha shacbiga dooda ka socota wax ka ogaano sharci dejiyaal ayaan nahay wixii qalday inaan saxno laakiin anagii mataqaana haddaan baarlamaankii ka maqannahay dhibteeda culeysteeda ay leedahay si dhammaystiran aan muxuu anaga iyo guddoonka isku soo horfadhiisana saxaafadda iska saarno aan u xisaabtantaana ma dhicin sababteeda koowaad labaad saddexaad waxaa leh guddoonka ayagaa fasaxay xildhibaanada xoogooda iyagaana xildhibaanada ay xiriir la leeyihiin marka inta aan kaga baxo arrinta koramka waa garta mudane xildhibaan waxaa laydinku eedeynayaa xildhibaanadii mucaaradka inaa maqnaadeen marka ayaa eedeynaysa haddii mucaaradkiina maqantihiin tirada ugu badan oo meesha joogta waxay ahaayeen xildhibaanadii mucaaradka waxaa maqnaa golihii wasiirada intooda badan waa siixan waa ka cararan haddaad markhaati tihiin kaamarooyinkiina waa idin waxa maqnaa waxay ahaayeen xubnaha golaha wasiirada oo boqolkiiba inta hadda boqolkiiba 70 kaga joogaan macnaha waxaan ka hadlayaa ilaa 70 ama 60 xildhibaan ay ku leeyihiin baarlamaanka marka kuwa ugu badan oo maqan iyaga waaye ama fasaxa ku maqnaada ama xafiisyadooda ha fadhiya marka kuwaas in lala xisaabtamay u baahan tahay sababtu marka hore loogu soo daraa qaldanayd taa waxaan u malaynayaa excuse ma laha xildhibaanada mucaaradka anaa ka mid ah inta badan oo hor leemanka hore fadhidana iyaga waaye marka haddaad soo tirisaanna waa xaqiijisan kartaan laakiin arrintaa eedeeda ayaga guddoonka iyo nimanka golaha wasiirada ka tirsan oo xildhibaanada ayaa iska Jiro Shaakir Dalsan TV xarunta Villa Hargeysa magaalada Muqdisho. Kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha
u dir hana lagaaga soo diro meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale Premier Wallet